hoggaanka xisbiga kulmiye wasiiro siyaasiyiin iyo haldoorka bulshada Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fooladeynayo cududda dhalinyarada caasimadda Hargeysa ururay ku midoobeen oo midnimo leeyahay uu ku shaacinayay ku beeritaankooda xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye xubno ku hadlay ururka dhalinyarada caasimadda Hargeysa ee midnimo ku midoobay ayaa iska daba maray sababaha ay ku xusheen ka mid noqoshada xisbiga kulmiye iyagoo iftiimiyay in codkooda iyo cududoodaba ay ku dhisi doonaan murashax Muuse Biixi Cabdi waxa la yaab Muuse Biixi marun hambaan baandeeq insha Allah waxa leenahay Muuse Biixina meel la kuma kala tagino waxa noqon doona insha Allah dadkii Ilaahay ugu tala galay wadanka inuu qabto waxaan ku rajaynaynaa kulay madaxweynuhu lama doorto laakiin waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inuu noqoto madaxweyne khayr qaba laakiin waxaanu dooraynaa codkayga xataa sadaqa ula bixi karnaa lagu markaan isla eegnay aan gorfaynay ayaan waxaan isla qaadanay xusbiga horumarka iyo midnimada jamhuuriyadda Somaliland oo garwadeenka ka yahay gudoomiyaha xusbiga mujaahid Muuse Biixi Cabdi horta xisbiga kulmiye waa xisbi dhalinyaro xisbiga kulmiyena waa xisbiga kaliyaatee noo hawl galay yani cududiisa iyo miisaankiisa bana siiyay waxaan leeyahay aan kula talinayaa dhamaanba sidaan dalkeena u ilaashan lahayn waxaan diyaarnahay ururahan midnimo inaan codkayga iyo kartidayda iyo aqoontayda iyo anagoo dhan isku duuban aan garab taagno wijaadka maadaama xaq uu leeyahay way aqoonta maanta nagu jirta isaga oo sababa gudoomiyaha musharaxa xusbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo leeyahay insha Allah ta'ala waxaad noqon doontaa ninkii hanan lahaa dalkan iyo dadkiisa markaanu eegnay hanaanka markaanu darisnay wanaaga iyo sharafta iyo xusbiga maamulka xusbiga kulmiye waxaanu ku qanacnay shaqada uu xusbigu hayo markaanu aragnay maamulka wacan ka socda xusbiga kulmiye waxaanu go'aansanay kuna qanacnay maskaxdayadana markaanu la kaashanay waxaanu dib u eegnay ujeedada guud ee maxay ahayd xusbiga kulmiye nagu dari karta runtii waxa noo cadaatay xusbiga kaliya ee ku beeri karno codkaygana aanu siin karno midnimo waxaan leeyahay waa inaad xusbiga bartankiisa gashaan oo shaqada qabataan waay maadaama tihiin darafaha magaalada Hargeysa codku waa Hargeysa waxaan idin sheegayaa inaad u diyaar garowdaan oo Muuse Biixi soo saartaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodijeex Maxamed Iid Dambiil gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Cabdinajax Siyaadow Cabdi iyo afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi xogayaha guud ee xisbiga Xasan Saciid iyo siyaasiyiinta kale ah محمد أحمد عالين تيمبرو أحمد حسن عقال عبد الكريم أحمد حنف إيه محمود راقي أيام مدشة هذا اللي كتشيديي وكوح يمدمد يقول الله سوق له أدينا الحزبك سي لو حقيقي هملا فوق إن لنا هاي دل كانوا نقضه دل حرة ومدح بنان وكتوابه هملا شعبيسة وأنا يريد أمام شيء قرات كودا إيو قرشدو ده إن تاجر بوحة كوسيان حسبك كل مية مدو صدح بلوضة بقعنت أنا كو ما تسكت سلجرني وأنا بدأ تشوفني بدنا ما واحد وبعه تيسي هيدر درجلين يحوك سعيد أو هلان إن ما أنت الله كل ما نحوك جالك حسبك كل وقت كان حاضر كانوا كوتشنا لا يمكن معلمي يقدم بينه كوزيتشنا وحوها كان قاعد شديد قبل كان مرودي شيء حلو عاصمتي سعي كسو جيدان dhalinyarada iyagoo caasimadooda ka kooban hadana kaalintii qiimaha lahayd ee warbixintoodu si fiican oo soo gaareysay ee ay ka qaateen dardargelinta iyo hawl fududeynta sidii kaarka loo qaadan lahaa anu aad uga mahad celinayo mar labaad waxaan ku dardaarayaa inay doon culayska saartaan maalmaha yareenoo haray kaarar waxooga ayaa soo noqdo yaala rag badan baa mikrofoonada imika oo xisbiga wadani sheegta ayaa ay gadaashan iyo ayaamaha dambe aad iyo aad mikrofoonada u taagnaa laba qaybood weeyaan qaybi waa ragii 6 sanadood inoo fadhiya xafiisyada ee gaadhigii ordayo oo lanaya oo ay ku jiraan iyagu uu u muuqday inuu gaabinayo iyadan cidina ka ridin intay gooda ka qaateen ka booday haddii habaaska u boodeen waxaan u malaynayaa cidna ma aadaynayaan waa xaq darro iyo ayaan darro iyo nasiib darro inay wax ka sheegaan xisbigii iyo xukuumaddii ay ku jireen qolada labaad waxa weeyaan qolo ilaa 19 xil haysay oo maalin kasta tiraahda sidaan xil u waayaa waxa weeye cidda uu madaxa kaga fadhiyo uu hortaagan yahay waa idinka xisbiga kulmiye
ruhaantii wuxuu idiin diyaariyey oo dhallinyarada somalilan u diyaariyey barnaamij dhan baakajkii dhammaa ee ay ku gaadhi lahaayeen ama ku gaadhsiin lahaa halka iyo himilada ay doonayaan inay gaadhaan hoolkan aynu fadhino ayaa baakajkii dhammaa ee noloshiina mustaqbalkiina iyo hadafkii aad ku meel gaadhi lahaydeen aqoontiina iyo noloshiina iyo mustaqbalkiinaba lagu dhislaa hoolkan lagu ansixiyey iyadoo 4 bilood laga soo shaqaynayay waxaan ilaahay dhalinyaroy xusbigaynu doonayno inuu soo baxo iyo musharaxiisu wuxuu inooga baahan yahay hilku inooga baahan yahayna waa farteenna ballankeenu ma yahay inaynu farteenna ku soo saara musabixe tan maanta joogta ee xukuumaddan kulmiye uu soo doortay isagoo ah raggii teedka adagu ahaa ee dhisay dowladdaa maanta joogta xil kamuu qabanin kuwa dadka yidhaahda mucaarid baanu nahay ay u nisbeeyaan wixii ay mucaaridayeen waa kuwa duulaamay xisbigu waa xisbiga keliya ee somalilan ilaa wakhtiga aynu joogno kor u socda ee marna aan hoos u noqon 5 doorasho oo dalka ka dhacay 3 ka mida kaalinta labaad buu adkaysanayay isagoo mucaarada 2na kaalinta koowaad buu ku jiraa isagoo muxaafida tan 6aad ee soo socdana kaalinta koowaad iyo labaad baynu isku darsado waa xisbi la wada leeyahay oo dhismihiisu adag yahay waxa cadaynaya labadii xisbi ee ka horeeyay mid uu baaba'ay oo uu ahaa midna gudoomiyihiisii 16 sano ka hor baa weli hor fadhiya oo bud la hor fadhiya xisbigani waa xisbiga ay isu daba mareen 7 gudoomiye ku xigeen waa xisbiga 2 gudoomiye isu daba mareen waa xisbiga ilaahay u naxariistee 3 gudoomiye ku xigeen iyo 2 xogaye guud ay ka dhinteen mujaahidka hadda madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wafdu hogaaminayo oo miyi ugu yimid ninkan hadda timaha gaagaaban leh oo raamale ninkan oo raamale ayuu wuxuu ku leeyahay waxa maanta inoo yimid wafdu hogaaminayo hogaamiyaha ururka SNM Axmed Maxamed Siilaayo dufcada meesha fadhiyayna waa la isbarayay waxa weeyaan 30 years before soddonkaa sano wuu dhex taagnaa nabadayn baa loo baxayaa muuse waa taagnaa difaac baa loo baxayaa muuse waa taagnaa gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa dhalinyaradan uga mahadnaqay sida cududooda ay ugu soo biiriyeen xisbiga kulmiye wuxuuna gudoomiyaha xisbiga kulmiye iftiimiyey hayaanka kulmiye uu qarankan ku horumarin doono waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa dhalinyarada maanta halkan noqotay dhalinyarada kulmiye ee maanta dalbatay inay madaxdooda iswareystaan oo ay bal ra'yi kala qaataan ee ra'yiga wanaagsan iyo cabirka wanaagsan soo jeediyay waxaan leeyahay sii xoojiya inaad fikirkiina iyo waxaad dareemaysaan iyo mustaqbalka saa aragtaan ku soo dhiirada oo soo xoojiya oo ha noqonina qaar ka badan waayo markaas umaad helaysaa mustaqbalkiina halkaa marisaan dal walba dhalinyarada saarista Somaliland hadday isku tashato oo dhalinyaradu hawlu diyaar garowdo meel walba gaarana dhalinyarada waxa ku tala gashaan anigu tilmaanta hartinaya inaa idinku tacabtaan oo dhibaatootaan oo tacabka aad qabanaysaan uu yahay mid aan lacag laga doonayn iyo dhaqaale bulshada hadday wado tahay la dhiso in muruqida ku dhistaan idinku mushaar weeyeen hadaa heshaan raashinka lagu noolay haddii beer la qodaayo inaad idinku qodaan adigoo oo aad u jeedin inaad ka hesho faa'iido degdeg haddii la biyo la raadinayo biyaha lagu yeelbka oo aynu balaya qodanayno inay dhalinyaradu xoogooda ku qodaan oo aanad u jeerin maxaa mushaharaysiinaya mushaharada iyo nolosha waxaa helaya kaad adigu dhasho iyo ka dambu dhali doono haddaad saa u shaqayn weydaan adiguna waxba tabcan mise gidaar baynu fadhiyaynaa kaad dhashaana gidaar buu fadhiya kursi dhalana gidaar buu fadhiya markaa dhalinyarada waxaan leeyahay waxaynu ku tashanayna inaad adigu tacabto oonad efdooni ee aad u tacabto mustaqbalka soo socda saasuu dar ku dhismaa dar ku dhismaa maxaan helaya dhalinyarada maanta waxaan uga digayaa 2 qodob mid waa makhaadaraadka oo qaadku ugu horeeyo midna waa quusta dadkii dhoofu wareysta
inta wax ka baratay ama ka xoogstay adduunka yeeshay 100% ma gaadho nin waliba halku tigay naftu kula tacaalaya dhalinyarada waxa ku ajoo inuu noqono dad pragmatic dad runta hortaagan anigu koleyntiina iyo badan kale way codanaysaa ninka codanaya wuxuu ku talagelayaa janno kuma hayaan inta ka saara halkan imika ku galmaayo janno iyo barwaaqo iyo xarraga iyo waxa tima waa xiiraya su'aalka dadku soo dhajinay mid ka adag baa idin xiraya أنا هبلا ما رد عيري وإيش غيره لكن رجع واحد يسوي إيمانه إنه واحد يسوي إنه هذا شق كان توقير هذه الدنيا مقارنة توقف تين كان مقارنة كبر الله يعرض بالك ويرتاح كله وين